wafdigan oo ay ka mid ahaayeen guddiga nabadeynta labada beelood gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayraad Dirir Salaadiin ka kala yimid gobolada Somaliland iyo hoggaanka saraakiisha ciidamada militariga ee gobolka Sool ujeedka socdaalkan ayaa ahaa sidii loo gaarsiin lahaa dhammaan deegaanada ay khusayso nabadii lagu heshiiyay waxaana ka mid ah deegaanadii ay gaadheen deegaanka Ceeljeex Geeddheer Dhumay Dabataa kala beer Saaxdheer xidhxidhiyo deegaano kale iyadoo maanta halkaasi ay ka jeediyeen wacyi gelino kala duwan saaka usbuuc sabtiya waxaanu taaganahay kooni magaalada Laascaanood wafdigan ballaaran ee hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayna ka mid yihiin wasiir dowladda madaxtooyada salaadiintii guddiga dhexdhexaadka cunaashi labada beelood waxay u ambaxayaan inay u soo dhameystiraan taabagelinta nabadeynta iyadoo ay naga horeeyeen orgooyinkii kale ee labada beelood socodkaygu saas u daaray bidmilaahi kariim halkan joogna waa Ceeljeex waxaanu soconnaa waa wacyigelintii nabadiintii ka harsanayd ee halkan aan idinku marnay bishii hore annagoo ka koobnay mataqaana ergooyinka labada reer marka socodkaygu saas u daaray yahay qof walba qofka kale gaarsii waa la idin sheegay sidii wax u dhaceen diyadii wixii laga soo qaaday waa la idin sheegay dhaawaca dawladdu iyo culimadu waxay tiri hadda keena annaga qabiilka ay naga timid inaan dibadidoodba sinmayn ama maqan yihiin ama qaarindii ku maqan ama toobiye ama dhaawacan biskooyihiin ama ay joogin annaga labada bilood qabsadeen iyagu nooma qaban iyagu waxay jeclaayeen hadda wuxuu israacaan shacabka iyo magaalooyinka iyo odayaasha waxa la isku raacsan yahay inaan magaalo kale la bilaabin tan laga bilaabin qobdheer laga bilaabin meel kale laga bilaabin taa waa la isku raacsan yahay waa ogeysiis waxaan kale ku darayaa halkan dhagaxa kan sidii loogu kala qaxwaa lagu kala maqan yahay hadda wixii laga bilaabo maanta aynu joogno waftigeedu idin tibi wixii khayr cabdi oo geedgal halka ku lahaan jiray iyo wixii ka maqnaa waa ku soo hoyanayaan me xasan adaa meesha iikaad adaa oday ka meesha wixii khayr cabdi ahaa wadada la maraya ammaankeeda iyo khayr cabdiga meeshan ku lahaa geedgalka wixii maanta laga bilaabo nin wala meeshiisu imaanaya 8 bilood baan siid ku jiri oo booshu dhexdeeda ku xidhnaa dawladda iyo odayaasha iyo intaas odayoo tolkaya adaan nabad helay maanta u baahana Meel Ismaaciil Haradige Somali TV deegaanada koonfurta gobolka Sool